xafladani oo si rasmi ah loogu daafurayay duulimaadyada shirkadda Air Djibouti oo markii ugu horeysay si rasmi ah looga furay magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin aad u tiro badan oo ay ka mid ahaayeen xubno ka socday golaha wasiirada agaasimaha ganacsiga ee shirkadda Air Djibouti Ian Badrig maamulaha Somaliland ee Air Djibouti Ridwan Ahmed iyo mas'uuliyiin kale oo aad u tiro badan xubno ka socday dawladda Djibouti iyo safiirka dawladda Djibouti u fadhiya Somaliland gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Dheere gudoomiyaha gobolka Maroodijeex iyo dad kale aad u tiro badan waxaana ugu horeyn ba madasha ka hadlay Ridwan Ahmed oo ah u qaabilsanaha diyaaradda Air Djibouti ee Somaliland oo ka warbixiyay adeegyada kala duwan ee shirkadda Air Djibouti ay qabato isagoo sheegay in shirkadani ay tahay shirkad ku caan baxday ammaano xafid waqtiga ilaaliso iyo sidoo kale adeeg hufan waxaanu intaasi ku daray in shirkadda Air Djibouti ay horeba duulimaadyada u waday balse maanta si rasmi ah loo daafuray oo adeegyadii hore ahaayeen qaar ku meel gaar ah runtii waa xaflad kooban oo waxaan ugu talagalay hawlo la xiriira diyaaradda Djibouti oo soo kordhisay service iyo adeegyo aan doonayno inaan la wadaagno bulshadeena Somaliland guud ahaan iyo taas oo qayb weyn ka qaadan doonta isku xirka caalamka iyo maxaan ku dhahdaa bulshada Somaliland Ian Badrig agaasimaha ganacsiga ee shirkadda Air Djibouti ayaa isna geestiisa sheegay in duulimaadyada ay ka waday 9 bilood Somaliland maantana si rasmi ah ay uga furayaan uguna dhawaaqayaan agaasimaha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada Umar Sayid Cabdullaahi Aadan wasiiru dawlaha wasaaradda gaashaandhigga Mustafa Farax Abrar wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Professor Ahmed Maxamuud Nuur gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Dheere gudoomiyaha gobolka Maroodijeex Cabdullaahi Jibriil Gaaxnuug Buraale oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa soo dhaweeyay shirkadda Air Djibouti ay sheegeen in ay tahay shirkad ku caan baxday adeeg wanaagsan iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxay dhahdeen iyadoo ku caan baxday runtii inay noqotay diyaarad aan hawsan lahayn flightskeeda 4 shay wiilkii marayaana si joogta ay ugu waday magaalada Dagaal International Airport aad iyo aad baan u mahadcelinayaa diyaaradaas waxay efficient oo suuqa aad loo jeclaan doonaa kale ka taabday laba shardi oo ilaaliso shardiga koowaad waxa weeye time-ka diyaaraddu hadday time-ka imanayso iyo time-ka ay kacayso ay sugto berri xilliga imanayso iyo xilliga ay ka kacayso diyaaraddaas waxay ku tagan tahay wadadeedii waa inoo raacay maadnaqayna jamhuuriyadda Djibouti oo xiriirka wanaagsan oo walba xiriirku waa xiriir soo jireen oo taariikhiya labada dal oo walaalaha ka dhaxeeyay haddana kor u sii qaadaysa waayo waxa soo raacay ganacsatada waxa soo raacay waxyaalaha faraha badan ee u baahanahay oo dhan oo tansiilaada ay u sameynaysaa shicirkeena sida daraadeed waxay ka mid tahay waxyaalaha tiirarka isku xidha bulshooyinka caalamka weynu waana si fiican baan ugu soo dhaweynaa haddaan nahay xisbiga kulmiye xiriir dheer baan la leenahay dawladda Djibouti iyo diyaaraddeedaba waanu si fiican baan ugu soo dhaweynaynaa waana nala shaqayn doonaa haddii la yidhaahdo aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaan ummadda reer Somaliland kolley horumarkeeda ayay ka mid tahay inay saaxiibo badan iyo sharaa'ib badan iyo maxaan ku dhahdaa diblomaasiyad badan ay yeelato caalamka dhammaan ku yeelato كل هرمرك ودنك هذه المسؤول ويننا gabagabadina safiirka dawladda Djibouti u fadhiya Somaliland ambassador Hussein Umar ayaa geestiisa ka warbixiyay in tani ay qayb ka tahay xiriirka wanaagsan ee ka dhaxeeya dawladda Somaliland iyo dawladda Djibouti taasi oo hormood ugu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti madaxweyne Ismaaciil Umar Geele jamhuuriyadda Djibouti dawladda Djibouti shaqooyinaha Djibouti iyo inta xagga maamusha iyo inta ku adeegta diyaaradda Air Djibouti dhammaantoodba waxaan leedahay Somaliland waa dal walaalahaya waa dal aan xiriir leenahay waa dal aan dadku isku mid yihiin reer Djibouti iyo reer Somaliland waa dal mid ah waxa weeyaan xaggan caawa waxa qiimaha badan ay tahay diyaaradda Air Djibouti waxa weeyaan diyaaradii ugu horeeyay ee Afrika ka hadla kun iyo maxamed 900 iyo 3 iyo 6 kilomitir haddana waa in arkaya